Assalaamu calaykum. Dr. Mahathir Maxamed, aabbihii Maleesiyada casriga, nin waqtigiisa u huray in dal sabool uu ka mid dhigo dalalka horumaray. Daawade muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa kumuu ahaa Dr. Mahathir Maxamed, sideese ayuu Maleesiya ku saaray xeyndaabka faqriga uguna mid dhigay dalalka horumaray. Ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Dr. Mahathir Maxamed waxa uu dhashay taariikhdu markay 10kii Julaay 1925. Waxa uu ku dhashay Lorsatar oo ah caasimadda gobolka Waqooyi ee Maleesiya Kedah. Kadib waxbarashadiisii sanadii 1946 ayuu ku biiray xisbiga dadka Malayga ee UMNO. Waxa uu noqday xubin baarlamaanka ka mid ah sanadii 1964. 5 sano kadib muddaxileedkiisii ayaa dhammaaday, waxa uuna isaga baxay xubinnimada xisbigiisa. Sanadii 1970 ayuu qoray dhiganihiisii caanbaxay ee The Malay Dilma. Dhiganahaas uu ugu baraarujinayay dadka Malayga inay noqdaan dad wax soo saar leh, iskana qaadaan xeyndaabka faqriga. Isla sanadkaas 1970 waxaa iscasilay ra'iisul wasaarihii dalka Cabdulraxmaan. Waxaa xilka la wareegay ku-xigeenkiisii Cabdulrasaaq Xuseen. Waxa uu Mahathir ka codsaday Cabdulrasaaq inuu xisbiga ku soo laabto. Sanadii 1973 Mahathir waxaa loo magacaabay senatarka gobolka Kedah, waxa uuna ka mid noqday golaha sare ee xisbiga. Sanad kadib Mahathir waxa uu ka mid noqday golihii wasiirada Rasaaq, waxaana loo magacaabay wasiirka waxbarashada. Sidoo kale waxa uu ka mid noqday xubin ka mid ah baarlamaanka oo laga soo doortay gobolka Kedah. Sanadii 1975 ayaa doorasho loogu magacaabay mid ka mid ah ku-xigeenada guddoomiyaha xisbiga. Isla sanad kadib 1976 ra'iisul wasaaraha dalka Rasaaq ayaa geeriyooday. Ku-xigeenkiisii Xuseen Ona ayaa talada la wareegay. Mahathirna waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka. 5 sano kadib Xuseen Ona waxa uu iskaga fadhiistay siyaasadda dalka arrimo caafimaad awgeeda. Dr. Mahathir oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa la wareegay talada dalka. Waxa uuna noqday markiisii ugu horreysay hogaamiyaha dowladda. Xilligaas Maleesiya waxay la daalaa-dhacaysay faqri iyo shaqo la'aan baahsan. Tirada dadka waddanka ku nool waxay dhammaayeen xilligaas 13 milyan oo qof. 52% waxay ahaayeen dad fuqara ah. Ilaha kaliya ay dadku ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen beeraha. Dalku ma haysan wax soo saar warshado, waxbarasho hufan, iyo adeeg caafimaad oo buuxa. Maleesiya waxay caan ku ahayd kaneeco badan, maadaama roobab badan dalkaasi ay ka da'ayeen. Dhulkoodu wuxuu ahaa mid jilicsan, kaabayaasha jidadka ee laamiyaasha ma wada gaarsiisaneen dalka, taasoo kaliftay inuu yaraado isku socodka. Xaddiga shaqo la'aanta ayaa aad u sarreysay. Dhaqaalaha dalkana waxa uu dhammaa 24 bilyan oo dollar. Dakhli sanadeedka soo gala dadka waxa uu ahaa wax ka yar 2,000 oo dollar sanadii. Mahathir khudbad taariikhi ayuu jeediyey markii uu talada dalka la wareegay. Waxa uu yidhi, maanta waxaan hortiina ka akhrinayaa qorshihii lagu gaari lahaa si aan Maleesiya ugu dhigno waddan horumarsan. Waxaan rajaynayaa in carruurta maanta dhalanaysa iyo kuwa dhalan doona 10 sano ee soo socda ay noqon doonaan jiilalkii ugu dambeeyay ee ku noolaada waddan saboola. Waxa uu maamulayay Maleesiya sanadihii u dhexaysay 1981 ilaa 2003, waa muddo 22 sano ah. Maleesiya waxa uu ka dhigay dal ka mid ah waddamada horumaray. Dal saboola ayuu ka dhigay dal maanta haysta dhammaan adeegyada lagu yaqaano dal horumaray. Xilligii uu maamulayay Maleesiya waxaa ka dilaacay waddamada koonfur bari ee qaaradda Aasiya dhaqaale xumo baahsan iyo sicir barar. Dalalka oo dhammi waxay deen u raadsadeen IMF, halka uu isagu diiday inuu dalkiisa deyn qaato. Shacabka reer Maleesiya ayuu cod dheer ugu sheegay inay dalkooda badbaadsadaan oo ay kabaan dhaqaalaha dalka. Saqiir iyo kabiirna waxay bilaabeen inay dhaqaalihii dalka kabaan. Waxa uu ku dhawaaqay barnaamijka Higsiga 2020, kaas oo ahaa in sanadaas Maleesiya noqoto dal horumarsan oo ka mid ah waddamada horumaray ama wax loo yaqaano Developed Nations. Intaan la gaarin 2020, Maleesiya ayaa noqotay dal ka mid noqday waddamada horumarka ballaaran sameeyey, dadkooduna ay ku nool yihiin nolol aad u wanaagsan. Maanta Maleesiya waa dalka saddexaad ee ugu qanisan koonfur bari ee qaaradda Aasiya. Dhaqaalaha dalka waxa uu sameeyey kobac ballaaran. Waxa uu kor u dhaafayaa 360 bilyan. Dakhli sanadeedka soo gala qofka Maleesiyaanka ayaa waxa uu gaarayaa 30,000 oo dollar. Dadka wax qora waxna aqriya dalkaas waxay ka yihiin 94%, halka 40 sano ka hor ay ahaayeen 68%.
Xaddiga faqriga Malaysia ayaa ka hooseeyay sanadii 2005 4 boqolkiiba, halka maanta la sheegay inuu intaasi ka sii hooseeyo. Sanadii 1981 boqolkiiba 52 dalka waddanka ku nool waxay ahaayeen fuqaro, balse maanta gebi ahaanba way ka baxeen xeyndaabkaas faqriga. Xaddiga shaqo la'aanta ayaa dalka ka ah wax ka yar boqolkiiba 3, waa horumar aad u ballaaran uu dalka sameeyey, waxayna higsanayaan sannadaha soo socda inay ka takhalusaan shaqo la'aanta gebigeedaba. Aqoonta ayaa kor loo qaaday iyo cilmi baarista. 40 sano ka hor Malaysia ma lahayn warshado wax soo saar ee waxtar leh, maantana kumanaan warshado wax soo saar badan sameeya ayaa dalkooda ku yaala. In ka badan 3 meelood meel dhaqaalaha dalka waxa uu ka yimaadaa wax soo saarka warshadaha. Sidoo kale boqolkiiba 40 dadka shaqeeya ee dalka waxay ka shaqeeyaan oo ay ka howlgalaan warshadaha. Waa dal soo jiitay dalxiisayaal badan, sanad walba balaayiin qof oo dalxiisayaal ayaa soo booqda dalka Malaysia. Waa dal degsaday shuruuc iyo nidaam u xaqsooraya Malayga, Shiineeska iyo Hindida oo dalkaasi wada dega. Horumarkaasi oo dhan waxaa la budhigay oo la gaaray intuu xilka hayay Dr. Mahathir Mohamad oo higsigiisii la fuliyey. Sanadii 2003 ayuu xilka ka degay isagoo dadkiisu xiiso badan ay u qabaan. 12 sano kadib sanadii 2015 ayuu siyaasadda ku soo laabtay. Sababaha u soo laabtay waxaa ka mid ah musuqmaasuq lagu tuhmay hoggaankii talada hayay. Waxa uu sameeyey xisbi cusub oo la loolama xisbiga dalka maamulayay tan iyo xurnimadii, ahaana xisbigii uu madaxda ka ah 22 sano. Waxa uu 2016 sameeyey xisbiga BBM. Doorashadii dhacday sanad ka hor ayuuna noqday ra'iisul wasaarihii toddobaad ee Malaysia hoggaansha, asagoo horey u soo noqday hoggaamiyihii afraad. Waxa uu Mahathir noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Malaysia 2 xisbi oo kala duwan dalka ku maamula. Waa nin aad aqoon durugsan u leh siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarinta ummadaha. Waa nin dadkiisa meel sare gaarsiiya oo ku suntan taariikh lama ilaawaan ah. Qof walba oo doonaya inuu ummadiisa horumar gaarsiiyo waa u tusaale Dr. Mahathir Mohamad. Maanta Dr. Mahathir Mohamad waa 95 jir, ahna aabbe 6 awlaad ah leh. Waa hoggaamiyaha ugu da'da weyn dunida ee xil haya maanta.